cadceed group dharka ay dalka keenaan waxa raga dhameystiran quruxna loo daa. bismillaahir rahmaanir rahiim. duhur wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada qodobada wararkan idin hayna maanta kuwooda ugu waaweyn. maamulka degmada Yaaqshiid oo sheegay inay qabteen rag la sheegay inay yihiin burcad dhac geysanaysay. beelihii dhawaan ku dagaalamay duleedka magaalada Maxaas ee gobolka Hiiraan oo mar kale dagaalamay. faahfaahinno dheeraad oo ka soo baxaya dhimasho dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. wasiirka gaashaandhigga Kenya waxa uu kormeeray saldhigyada ciidamada Kenya ay ka joogaan gobolka Jubbada Hoose. degmada Marka ee gobolka Shabeellada Hoose oo ka mid noqotay degmooyinka ay go'doomiyeen Al-Shabaab. qaar ka mid ah gaadiidleyda xamuulka ee ka howlgala dekedda Muqdisho oo sheegay in muddo 5 sano ah laga hortaagan yahay shaqadooda. mas'uuliyiin ka tirsan dawladda Mexico oo shil diyaaradeed ku geeriyooday. iyo weerar ay dad badan ku dhinteen oo ka dhacay dalka Afghanistan. Hormuud Telecom u doono adeeg isgaarsiineed oo casri ah. Hormuud Telecom u doono internet xawaarihiisu sareeyo. adna qaado Hormuud saaxiibkaan u qaad. intaas waxay ahaayeen qodobadii wararkeena ugu waaweynaa. imikana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo dhameystiran wadajir waxaa idinkugu waramaya duhurkan burhaan diini faarax iyo anigu xawlul cubayd. warka waxaa soo saaray maxamed cali maxamed. taariikhduna waa 25 bisha 12 sanada 2018. ku soo dhawaada dhageystayaal warkii oo fidsan. maamulka degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa sheegay inay qabteen rag la sheegay inay yihiin koox burcada oo waayahan gudaha degmada dadka rayidka dhac u geysanayay. wariyaheena Yunus Duraan Cali hayno faahfaahiyo warkan. ciidanka booliiska Soomaaliya gaar ahaan kuwa degmada Yaaqshiid ee gobolka Banaadir ayaa maanta degmadaasi ku soo qabtay rag burcada ah oo dadka ku nool xaafadaha kala duwan ee degmadaasi dhac u geysan jiray. raggan burcadka ah oo ay maanta ciidanka booliiska Soomaaliya ka soo qabteen degmadaasi ayaa gaaraya tiro ahaan 4 qof, hubkii ay wax ku dhacayeen iyo mooto bajaaj ay adeegsanayeen. raggan ayaa la sheegay inay dhac ka bilaabeen agagaarka saldhigga degmada Yaaqshiid iyagoo u gudbay dhanka degmada Kaaraan gaar ahaan xaafadda Argentiin oo ay ciidamada ammaanka ay ka soo qabteen iyagoo dhac geysanaya. gudoomiye ku-xigeenka ahna kusimaha gudoomiyaha degmada Yaaqshiid ee maamulka gobolka Banaadir Maxamed Deeq Xasan Gaafo oo la hadlay idaacadda kulmiye ayaa sidan inoo xaqiijiyay. kulmiye radio saakay ciidamada booliisku waxay qabteen shaqo aad u muhiim ah oo loo baahnaa degmada Yaaqshiid. ciidamadu waxay ku guuleysteen inay soo qabtaan 4 burcada oo wadatay mooto bajaaj ku haysnaa 2 bastooladood dhac u geysanaya bulshada degan Yaaqshiid. telefoonada iyo wixii la mid ah magaalada waxay ka bilaabeen gudaha degmada Yaaqshiid zoonaha saldhigga mootay wateen. riboodka waxaa loo gudbiyay ciidamada booliiska oo ku sugan saldhigga iyo kuwa ku sugnaa isgoyska Fagax. darbadii booliisku waa isgaarsiiyeen dabaaritaano iyo dabagal ay sameeyeen. mootadii iyo asaamiyeedii haysteen waa dabagareen. mootay ka daba qaatay waliba si qarsoodi ah oo sirdoonnimo ah. kadib waxay ku guuleysteen inay ka soo qabtaan degmada Kaaraan gaar ahaan xaafadda Dheeraar. ilaa waxay wateen 2 bastooladood ay ka koobnaayeen 4 burcad ah. waxay wateen mooto bajaaj 4toodii iyo hubkii ay wateen oo 2 bastooladood ah iyo aaladii ay wateen oo mooto ahayd iyo waxa la yiraahdo telefoonada ay dhacayeen. intaba waa la soo qabtay. booliisku waxay ku guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan kuna soo xiraan saldhigga booliiska degmada Yaaqshiid. wallahi way isdifaaceen nimanku laakiin waa si xeeladaysan ay booliisku ula macaamileen oo ay ku guuleysteen wax dhibaayo aan loo geysan dhaawac dhimasho midna aan ka dhicin wax khasaare ah aan dhicin ku soo guuleysteen inay gacanta ku soo dhigaan. inta badan degmooyinka gobolka Banaadir ayaa dadka ku nool waxa ay ka cawdaan rag burcad ah oo xilliyada habeenkii iyo maalintiiba dhac u geysanaya. sidoo kale waxaa xusid mudan in maxkamadda ciidamada qalabka sida ay xukun ku riday maalmihiina soo dhaafay rag lagu eedeeyay inay dhac ka geysan jireen degmooyinka gobolka Banaadir. beelihii dhawaan ku dagaalamay duleedka degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayaa la sheegayaa in mar kale ay dagaalameen. maxamed cabdiweli tooxow ayaa warkan inoo soo diray. ugu yaraan 2 ruux ayaa ku dhimatay dagaal beeleed ka dhacay deegaanka Miracad oo hoos yimaada degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. maamulka gobolka Hiiraan ayaa sheegay in dagaalku u dhaxeeyo 2 maleeshiyo beeleed kuwaasi oo ka soo kala jeeda degmooyinka Matabaan iyo Maxaas ee gobolka Hiiraan. waxay sheegeen dagaalkaasi ay ku rajo weyn yihiin inay wax badan ka qabtaan maadaama goobta ay joogaan mas'uuliyiin ka tirsan maamulka gobolka Hiiraan. gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Dabageed ayaa ugu baaqay
labada dhinac inay dagaalka joojiyaan islamarkaana ay nabad qaataan. Waxa uu sheegay in dadaal badan ay ku bixin doonaan sidii loo soo afjari lahaa xiisada colaadeed. Taan meeshu nimidna hadda laba nin oo labada dhinac dhimatay sida la sheegay. Weliina waa ku dhex jirnaa hooshadiyaa la joognaa. waana ku sii dhex jiraynaa haddii alla idmo. annaga adeer labada wadnaa dhibaatadii meesha ka dhacday inaan nabad ku soo dabaalnaa rabnaa. ilaahayna waa u tala saaranaynaa, annagana dadaalaan samaynaynaa, waktina waa siinaynaa haddii alla idmo. dadkii fidnada hore u abuuranay weli fidnadii ay laga reed wadaano waa dhibaatadii habeen walba waxbaa lasii fidneeyo waxbaa lasii kala fogeeyo magarat. adeerow meesha fidnadeedu waa digi diiday. adeerow dadka qolo kastoo la hadashaa nabadaan rabnaa ay kuleeyihiin, laakiin uurkooda waxa ku jiro ilaahay baa yaqaana, anuu ma garan karo, ilaahay baa garan kara. anaga laakiin ilaahay baa ogo waxaanu sheegaynaa nabad qaata. waxayna leeyihiin nabadda waa qaadanaynaa, nabadaan qaadanaynaa iyagoo maanta ku yidhaah cawada walaxay dileen kuwii xagga waa kalay dileen lagu leeyahay, kuwa kasta walaxay dileen baa lagu leeyahay, kuwa kastana maalinkii nabadaan qaadanayna ay kuleeyihiin. marka ciddii nabad rabtaana idaa badbaadi doonta. wallaahi wax badanaa guul ka gaarnay, hadda xabad safoo dhacaysaa ma jirto. dagaal beeleedyada ka dhaca qaybo ka mid ah gobolka Hiiraan ayaa waxaa inta badan ay ka bilowdaan isqabqabsi ka dhasha dhuldaaqsimeed iyo ceelbiyood. Maxamed Cabdiweli Tooxow, idaacadda Kulmiye, Dhuusamareeb. iminkana gobolka Baay. faahfaahinno dheeraada ayaa waxay ka soo baxayaan dhimasho dhaawac ka dhashay qarax ka dhacay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. wariyaheena Axmed Cabduqaadir Yarow ayaa warkan inoo soo diray. faahfaahin dheeraad ah ayaa ka soo baxaysa qarax sababay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay xaafadda deegaandega ee ku taalla duleedka magaalada Baydhabo ee gobolka Baay. inta la ii xaqiijiyay 2 ruux ayaa ku geeriyootay 13 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii dhulka loogu aasay qarax nooca dhulka lagu aaso. dadkan oo dhammaantood ahaa dad shacab ah ayaa waxaa la ii sheegay inay ciyaarayeen mid ka mid ah ciyaar dhaqameedyada laga ciyaaro deegaanada koonfur galbeed Soomaaliya. waxay ahaayeen dhalinyaro isugu jira rag iyo dumar kuna cawiya xilli walba deegaankan oo ah deegaan ay u badan yihiin dad barakacayaal ah. waxaana bam loogu aasay goobtii ay ku ciyaarayeen ciyaar dhaqameedyada. isbitaalka weyn ee magaalada Baydhabo oo aan la xiriiray waxay ii xaqiijiyeen in hadda dadka qaarkii ay ka sooreynayso xaaladooda caafimaad. weli ma jiro wax hadal ah oo ka soo baxay maamulka gobolka iyo kan degmada Baydhabo iyo sidoo kale laamaha ammaanka ee ku aadan dadkan bamka loogu aasay goobtii ay ku ciyaarayeen ciyaar dhaqameedyada isla markaana sababtay khasaaro dhimasho iyo dhaawac. dhimashadu waa 2 ruux iyo dhaawaca 13 kale oo isugu jira rag iyo dumar. dadka deegaanka qaarkii oo aan la xiriiray waxa ay ka gaabsadeen inay ka hadlaan, ayagoona qaarkood diiday in magacooda iyo codkooda loo isticmaalo warbaahinta. ay sheegeen inay ku tuhmayaan inay ka dambeeyaan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Axmed Cabduqaadir Yarow, Axmed Saadaq, Radio Kulmiye, Baydhabo. wasiirka gaashaandhigga Kenya ayaa kormeertay saldhigyada ay ciidamadeeda ka joogaan gobolka Jubbada Hoose. Maxamed Axmed Tuuriyare warkan ay noo faahfaahiyo. xoghayaha gaashaandhigga Kenya Rachel Omomo iyo taliyaha militariga waddankaas General Samson Matthew ayaa booqasho lama filaan ah waxa ay ku yimaadeen saldhigyo dhowr ah oo ciidanka Kenya ay ku leeyihiin Soomaaliya. safarka Omomo iyo General Matthew ayaa waxa uu ku soo aaday xilli ay ciidanka Kenya ee jooga Soomaaliya isu diyaarinayeen u dabaaldegga ciidda Masiixiga waxayna la kulmeen madaxda ciidanka ka howlgala Soomaaliya. saldhigyada ciidanka Kenya ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan Jubbada Hoose oo uu ka mid yahay Kulbiyow ayay mas'uuliyiinta militariga Kenya ugu sarreysa booqdeen sida lagu sheegay war uu baahiyay TV-ga Citizen. waxaan halkaan u imid inaan farxadda sanadka idinla wadaago raggiinna iyo gabdhihiinna geesiyaasha ah. waxaan doonayaa inaan idin ogeysiiyo in la idin mahad celinayo dadka Kenyana ay idinku faanaan, ayay tiri wasiirka gaashaandhigga Kenya. waxaan idinkaga mahad celinaynaa inaad u istaagteen inaad khatarta ka hor istaagtaan waddankeenna hooyo oo aad xitaa caqabado waaweyn wajahdaan. waan idinkaga mahad celinaynaa nafti hornimadiinna, ayay ku dartay hadalkeeda markii ay khudbadda u jeedinaysay ciidanka Kenya ee ka howlgala Soomaaliya. intii ay booqashadeeda ku jirtay ayaa wasiirka gaashaandhigga Kenya waxa ay sheegtay in sababta ay u timid qaybo ka mid ah meelaha ciidamada Kenya ay ka howlgalaan ee Soomaaliya ay tahay in ay wax ka ogaato nolosha maalinlaha ah ee ciidanka Kenya ay ku sugan yihiin. taliyaha militariga Kenya ayaa isaguna dhinaciisa waxa uu sheegay in ciidanka Kenya ee ka howlgala Soomaaliya ay
ka shaqeeyaan sidii ay u badbaadin lahaayeen nafta dad kale oo kenyaana saldhigyada ay booqdeen wasiirka gaashaandhigga iyo taliyaha milatariga kenya waxaa ka mid ah kulbiya oo al-shabaab ay weerar ku qaadeen 27 janawari ee sanadkii 2017 halkaas oo ciidanka kenya ay uga dhinteen ugu yaraan 68 askari. degmada markaa oo xarun ah gobolka shabeellada hoose ayaa ka mid noqotay degmooyinka ku yaala gobollada dalka ee haddana ay go'doomiyeen dagaalamayaasha al-shabaab. wariyaheenna farxaan maxamed xuseen ayaa warkanna inoo faahfaahinaya. degmada marka ee xarunta gobolka shabeellaha hoose oo ay dhowaan gacan ku haynteeda ay la wareegeen ciidamada dowladda ayaa waxaa gudaha degmadaasi laga dareemayaa xaalad nololxumo kadib markii ay go'doomiyeen waddooyinka soo gala degmadaasi al-shabaab. senator axmed nadiir oo ka tirsan golaha aqalka sare oo la hadlay idaacadda kulmiya ayaa waxa uu sheegay in waddooyinka waaweyn ee soo gala degmada marka ay go'doomiyeen al-shabaab taasina ay walaac ku noqotay shacabka ku dhaqan degmadaasi maadaama halkii ay wax u soo marayeen ay go'doomiyeen al-shabaab. senator axmed nadiir waxa ugu baaqay maamulka cusub ee koonfur galbeed iyo dowladda dhexe ee soomaaliya inay wax ka qabtaan waddooyinka ay go'doomiyeen al-shabaab ee ku yaala gobolka shabeellaha hoose. horta runtii magaalada sidii ciidamada u qabteen oo deegaan ahaan magaalada gudaheeda aad iyo aad maaragtay maxaan ku idhaha nabadgelyo fiican ay ka jirto. dhibaatada ugu weyn hadda shacabka naga soo gaaraysa waxa weeye dhinaca jidadka ka imaanayay magaalada muqdisho ama deegaanada kale ka imaanayay. runtii waxaad moodaa magaaladu inay godoon gashay oo godoon ku jirto maxaa yeelay jidadkii waaweynaa ee magaaladaasi looga baxay ama dhinaca xeebta ama dhinacan kaleete ee afgooye ilaa shanaanbood jidkii weynaa ee halkaas ah wuu go-an yahay. waayada weytu waxaa la mari jiray waxay ahayd jidkan oo xeebta ah jidkii xeebtana hadda waa go-an yahay. marka halkaasi waxaa ka soo socda dhibaato weyn baa ka soo socda. runtiina waxaan codsanaynaa in dowladda maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalka inay arrintaasi runtii si dhaqsaa hawshaasi wax looga qabto. gobolka shabeellaha hoose waxaa inta badan degmooyinkiisa gacanta ku haya ciidamada dowladda iyadoona degmooyinka qaar ay go'doomiyeen al-shabaab islamarkaana shacabka ku dhaqan degmooyinkaasi ay la soo foosaatay xaalad nololxumo. qaar ka mida gaadiidleyda xamuulka ee ka howlgala dekada muqdisho ayaa sheegay in muddo 5 sana laga hortaagan yahay shaqadooda. cabdulaahi xuseen canshuur ayaa ka waramaya. in ka badan 70,000 oo gawaarida xamuulka ka shaqayn jiray dekada weyn ee magaalada muqdisho ayaa ku dayacan geerisho dhowr ah oo ku yaala magaalada muqdisho waxayna caqabada ugu weyn ay haysata wadayaasha gawaaridan ay ku sheegeen shaqo la'aan la soo diristay. guddiga gaadiidleyda dhiban ayaa maanta warbaahinta u soo bandhigay caqabadaha ka hortaagan ku shaqaynta gaadiidkan wixii ka dambeeyay 2014 oo aanay helin fursado ay xamuulka kaga soo qaadaan dekada weyn ee muqdisho iyaga oona ku andacooday in tiro kooban loo diiwaangeliyey inay ka howlgalaan dekada iyaguna caqabad looga dhigay lacaga tiro badan oo ay sheegeen in ay dhiibaan laguna wargeliyey. cabdulaahi cali faarax afayeenka guddigan ayaa baaq ku aadan xaqsiintooda waxa uu diray dowladda soomaaliya si gaar ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya xasan cali kheyre. waxa uuna sidoo kale carabaabay inay dhowr jeer oo hore sidan oo kale cabasho ay ka keeneen maamulka sare ee dekadda iyo wasaaradda gaadiidka. dadka gaadiidkoodii la fadhiisiiyey oo hantidoodii la burburiyey oo ilmahoodii dekada militariyaanka ay ku baabi'een waayeelkiina ay ku tabaalaysan yihiin oo macaluul la yaaliin maxaad uga tacsiyeyn weyday? ma geeri baa geeri ka fiican? ma dadkaa qaad ajnabiga yahay shacabka soomaaliyeed miyaa qaad ajnabi yahay? maxaad uga tacsiyeyn weyday? maxay ku muteen in gaadiidkoodii la fadhiisiiyo oo mudnaantii ay lahaayeen shakhsiyaad burburkii dowladdii maxamed siyaad rabiilaqa ku soo galay oo baadiye ka soo orday oo qaalkood qaangaar ahayn sababta loo guddoonsiiyey dekadii soomaaliya ee raas caseer iyo raas gambooni soomaalida u dhaxaysay international board muqdisho waxaa shakhsiyaad guddoonsiiyey dadweynihiina ka xidhay ee u diiday baan kaa rabnaa inaad noo sheegto oon cadaalad darre iyo musuq maasuq ahayn.
waxaan taaganahay oo shacabku ay taagan yihiin maalintii dowladda markii la doortay maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ra'iisul wasaare xasan cali khayre ayakoo doonaya cadaalad ayay banaanbax dibadda u soo baxeen ilaa yoomana haada maantay wax dawlad sheegta oo ka hadla oo u yimid oo yidhaa dadkii shacabka ahaa maxay dadkan shacabka ahi ka cabanayaan weli ma hayno marka laga reebo aqalka sare oo before 2 weeks naga qabtay waraaqo oo noo yeedhay ee waxna weydiiyey ma dulmanahay xoolahayagii ma la fariisiin dawladdu mana ka mas-uul tahay ilmahayagii badaha ma ku daateen waxay qabaan rajo ku aadan ka soo jawaabidda dawladda cabashadooda badan iyaga oona intaa ku daray inay ilin walba oo ay u arkaan in ay ka helayaan xuquuqdooda ay garaaci doonaan marnabana aysan ka quusan doonin rajada alle iyo wax ka bedelidda dawladda oo ku aadan hannaanka ay ku howlgalaan gaadiidka ka shaqeeya dekadda weyn ee muqdisho. canshuur waa mahadsantahay halka warkaa dhegeystayaal kala socotaana waa radio kulmiye. duulimaad raaxa leh degdegsiimaya ammaano ayr jabuuti u doono. kooxo hubaysan ayaa weerar ku qaaday wasaaradda howlaha guud ee dalka Afghanistan. weerarka ayaa ku bilowday gaari uu ruux naftii hura ah ku qarxiyay afaafka hore ee wasaaradda waxaana xigay weerar toos ah oo ay kooxo hubaysan ku qaadeen gudaha wasaaradda caafimaadka ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay in dadka ku dhintay weerarkaasi ay gaarayaan ilaa 43 ruux sida uu sheegay afayeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee dalka Afghanistan. dadka ku dhintay weerarkaasi waxaa ka mid ah taliye booliis iyo madax iyo 3 ka mid ah dagaalamayaashii weerarka soo qaaday. ciidamada ammaanka ee dalka Afghanistan ayaa sheegay in dhismaha la weeraray ee ka soo badbaadiyeen dad gaaraya 350 ruux. gudoomiyihii gobolka Puebla ee ku yaala wadanka Mexico iyo saygeeda oo ahaa xubin sare oo ka tirsan senatarada dalka Mexico ayaa ku geeriyooday shil diyaaradood oo ka dhacay dalkaas. haweeneydan oo lagu magacaabay Martha Rica Alonso ayaa noqotay haweeneydii ugu horeysay ee gudoomiye ka noqoto gobol dalka Mexico ku yaala waxaana laga joogaa muddo 10 cisho markii xilkan loo dhaariyay. madaxweynaha cusub ee wadanka Mexico ayaa saxaafadda u xaqiijiyay dhimashada labada siyaasi waxaana sidoo kale madaxweynuhu qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka uu taasi ugu diray eelada ay ka tageen. sanadkii 2011 ayay ahayd markii sidaan oo kale shil ka dhacay dalkaasi ay ku dhintay wasiirkii hore ee arrimaha gudaha dalka Mexico. warar kale hadda soo baxayaan waxay sheegayaan in dabli hubaysan ay weerar ku qaadeen dhismaha wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Liibiya oo ku taala magaalada Tripoli. khasaare kala duwan ayaa jira sida wararku ay sheegayaan. kooxda hubaysan ee weerar ku qaaday dhismahaas ayaa ilaa haatan cid ay ka tirsan yihiin la garan. guud ahaan war wixii dalkii dibadda naga soo gaaray oo duhurkan radio kulmiye muqdisho aad kala socoteen aqyaari waa naga intaa cidii warkeenu u dhaafay radiokulmiye.com.